Hello, assalamu alaikum. Qaybtii brogan Virginia of Fathiaabsie is Kawarama. I hope you guys are doing well wherever you are in the world. So dhawaada qaybtii lixaad ee sheekadii The Memories of the Lake House. So dhawow fadlan intaynaan ilaawin share, comment, like, follow and subscribe. All right. Waa tahay. Anyway, waxay inoo maraysay iyada oo and finally David and ay xaaskiisii telefoon soo dirtay isagoo darawalkiisii gaariga ku wado oo ay u sheegtay furiin inay dalbatay oo markaa ay cabaar wada sheekaysteen oo uu ku yidhi wax walba oo aad doonaysid diyaar baan u ahay dabadeetana markay teleefonkii kala dhigeen ilmo yar isku soo taagtay oo uu yara tiiraayooday dabadeetana uu soo xusuustay courtshipkoodii iyo ilaa iyo markay isbarteen de guurkoodii all the amazing milestones. dhanka kalena waxay noogu dambeysay iyadoo gabadhii Margaret ay gurigii ay ku kortay ee Lake House-kii u diratay saaxiibadeed oo real estate agent ah. saddexda bilood ay saaxiibka la tahay mid kamid ah ayaa realtor ku guriga iibiya ay ku tiri gurigii soo eegay saaxiibadeed yaa bantay leedahay maxaad ku falaysaa sodiga already mid kale leh ay leedahay don't worry about it waqtigaan ugu farxanta badnaa halkaas ay ahaydaan ugu soo halkaas inoo maraysay marka ninkii David ha markuu gurigiisii tagay wuxuu yidhi well de hadeer waxaan haynin soolane ah I think I have the right to look around waxaan u malaynayaa waxaa la gaadhay waqtigii aan maaragtay dee xaq waxaan u leeyahay imika inaan si fiican wuxuu eego oo weliba gabadhan Margaret the writer qoraagan The Memories of the Lake House. It's time to find out who she is. waxaan u malaynayaa waqtigii waxaa la gaadhay aan ogaan lahaa qofka ay tahay gabadhani ma qalbigaygu ma run buu ii sheegayaayo talo waa xaggaa ii riixaye ma inantii markii aad yarayd aad isjeclaydeenba mise talo waa uun qalbigaaga iska doonaya inay noqoto iyadii I think waqtigii aad baari lahayd baa la gaadhay dabadeetana waa kii bugaagteedii oo dhan maaragtay dalbaday ee sugiba kari waayay inuu download garaysto PDF-ka The Memories of the Lake House mar walba oo de uu akhriyo buugiibu haddana dib ugu noqday oo de uu weli akhriyayaa wax walba waxay u xaqiijinaysaa waa sheekadii waa halkii waa iyadii xoogaa markaa maaragtay wuxuu dareemayaa dee ciil iyo dareemi maayo dee guurkaagii wuu burburay wuu iska garanayay guurkiisu dee inuu awalba xaggaa usii socday laakiin xoogaa rajaa soo gashay raja ah maybe it's not too late for you waxaa suurtagala inaan maaragtay wax waliba sabab bay u dhacaane in guurkaagu u dhammaanayay because meel kalaa ilaahay ku wadaa meel kalaa lagu ogay restaurant baa ku yaala buildingka hoostiisa 5 star ahoo restaurantkiibuu casho ka dalbaday keligiibaa halkiis ka fadhiistay maaragtay magaaladii oo dhan dee buildingkan dusha ka eegayo maaragtay penthousekiisii halkaa uu magaaladii oo dhan ka daawanayo laakiin keligiisa by his lonesome isagoo cuntadiisa cunaya ayuu haddana buuggiisii iska akhrisanayo already bijaamadiisii iska gashan gurigiis kaga joogayo xoogaa wuxuu yara dareemayaa something's in the air waa kana saaroo kale waxbaa marmarka qaarkood wax wanaagsan intaad weydo ayaa wax kaloo wanaagsan isla markiiba lagugu soo bedelaa marka xoogaa rajaa soo yara gashay David dhanka kalena inantii Margaret balconigeeda iska fadhida dadka shaax jecel had iyo jeer oo waxay gashataa maryahan iska falafiga ah very comfortable ka toobabkan hareeraha ka furan iska de maaragtay jidhko u macaanee iska leydsiga ah oo had iyo jeerna shaal yar bay saa isu saartaayo markaas iyadoo balconigeedii iska fadhida oo badleydsigeedii oo teleefonkeedii sidaa weegaysa oo email iyo wax iska eeganaysaba dhalow text message uga soo dhacday gabadhii saaxiibadeed ay dirsatay guriga realtorkii title-ku markaa wuxuu ahaa I have an exciting news waxaan hayaa war farxad leh markaasay markiiba furi maysee
saasay u yara qabanaysaa markaasay yeah she will take a deep breath neef bay qaadanaysaa yeah there could be that talo gurigii haddii lasoo helana gurigii laftiisii oo aad muddo in la yara cusboonaysiiyey oo sawir ah ayay usoo diraysaa markaasay odhanaysaa it might be available for the right price yeah waxaan u malaynayaa qiimo wanaagsan haddaad ugu bedelaysid dadkii lahaa waad heli karaysaa baan filayaa gurigan markaasay qoslaysaayo markaasay isla markiiba ku celinaysaa iyadii fariino markaasay ku odhanaysaa make an offer yeah si qiimaha ay doonayaan u sheeg qiimaha ay doonayaan markaasay odhanaysaa are you sure ma hubtaa markaasay odhanaysaa ha money is not an object iyaga xaggooda dee tabti David ayay tiri ciddii lehba waxay doonaan intay doonayaan si aan doonayaa guriga waayo markaasay saaxiibada tiri taleefonkii bay sac dhigtay oo markaasay shaahida intay iska yara cabto ayay istaagaysaa halkii balkonigii intay kacdo ay birtii balkoniga sidaa bay saa u yara qabsanaysaa oo markaasay shaalkii haddana intay iska qaado halkan kursiga ku tuurto ayay indhaha isku qabanaysaa oo neecawada sidaa isugu yara dhigaysaa balkoni qurux badan oo wada dhir kasoo lulato plants geedaa kasoo lulasho oo beautiful and markaasay markay indhaha isku qabsato ayay waxay soo xusuusanaysaa maalin iyada iyo David oo isbaacsanaya markay yaryaraayeen ay turunturoonayso intay turunturooto ay afgembi sidaa ugu yara dhacayso ciidda wejiga darsanayso oo intuu markiiba kusoo boodo uu Margaret okay saa usoo jeedinayo oo sidaa uga masaxayo ama okay markaasuu sidaa yara embarrass bay noqotay yara qagshay markaasuu ciiddii sidaa uga masaxaya markuu ka wada masaxo ayaa xoogaa meeshuu yara niis yaro qoqoyaan iyo waxna way iska ahayd oo ereyada maaragtay meesha shoorka meesha biyuhu soo gaadhaan bay ahayd saa marba ugu soo yara tiixaano marka xoogaa qoyaankiiba saa ugu dhigdhigayo gacmihii uu ka marinayay gacantiisa saa marabta ugaga masaxayay ayaa gacantiina ciiddii ku dhigtay markaasuu wejigiisa dhabankiisa saa uga mariyay markaasaa isagii ciiddii ku dhigdhigtay markaasay qosashay dhaq saa u eegaysaa qoslaysaa basoonay maxaad ku qoslaysaa basoonaysaa farta intay saa ugu fiiqdo markaasuu isna saa isu taabanaya mise ciiddiibaa isagii ku dhigdhigtay markaasay labadiiba qosqoslayaanoo isku barbar dhacayaan barbar jiifsanayaayo markaasay iska qosqoslayaanoo markaasuu aabihii soo istaagayaa balkoniga marlaysiga intuu soo istaago ayuu arkayaa iyagoo qosqoslayo iska habiyo iska faraxsan u yeedh buu is odhanayaa markaasuu odhanayaa haddana odhanayaa iska daa iska arkaya how innocent yeah sida yara iska daacadda ahee iska nadiifta ahee yaa dhibaato iyo waxbaa kala midab duwan iyo waxbaa kala duwan iyo waxaasoo dhan iyaga niyadooda dee kuma jiraan waxaasoo dhan daacad iyo nadiif bay ka yihiin markaasuu gudahaysoo dhaya ku noqon markaasay hooyadiio yaro qumayaahay odhanaysaa where's David ma u yeedhe markaasuu odhanayaa iska daa aabihii iska daa iska yara ciyaaraya markaasuu odhanaysaa ma gabadha yarayda kalarka ahayd kula ciyaaraya gabadha yarayda dadka madooba lagu yidhahdaa lagu odhan jiray waqtigaa color people ma gabadha yarayda madoobeyd kula ciyaaraya markaasuu odhanayaa iyuu kala la ciyaari lahaa ma meesha macruur kale mayadaa joogta haya iyadii la ciyaaraya iska daa markaasay iyadii soo dhaafaysaayo balkonigii soo istaagaysaa markaasay David u yeedhaysaayo markaasuu soo boodaya soo fadhiisanaya soo eegayaayo markaasay odhanaysaa get in right now haddadaa soo gal markaasuu
okay mami intuu kaco hayaho iyo yara tiiraanyoonayayo markaasuu kacayaa sonia bye Margaret markaasuu ninaysaa iyadna intay soo sara fadhiisato bye David iyadoo sii eegaysa wuu iska sii yara dhaqaaqayaayo dharkiisi xoogaa yara qoyan yihiinoo markaasay soo dhaqso odhanaysaa markaasuu kun yar iska sii yara luudayaa isaguna marba dib u sii yara eegayaa Margaret markaasay iyaduna wax yar kadib iska kacaysaayo gudaha iska soo galaysa oo markii ugu dambeysay ay isla ciyaaraan ciyaartoodii ugu dambeysay bay ahayd next daydii maalintii ku xigtayna waa tii gurigii laga saaray macaalaabadoodii wax shadadahoodii dharkoodii unbay ka qaateen Margaret iyo hooyadeed iyo aabaheed alaabtoodii xataa waa loo diido marka tax lagugu leeyahay cashuur marka lagugu leeyahay xoog ka qaadan maysid alaabtaa waa la xaraashayaa oo waxaa laga goosanayaa lacagta ay dowladdu kugu leedahay gurigoodiina sidii bay ku waayeen marka indhaha isku haysataa markay waxaasoo dhan soo xusuusanayso markaasaa ilma soo dhaafaysaa xoogaa emotional noqonaysaa ilma soo dhaafaysa guriga waa inaan helaa ila gurigii aanu anagu iska lahayn xaqa u lahayn dee gardaradana looga qaaday lacag yaroo qiimo yaroo jaban maaragtay nothing waxa yaroo aan badnayn oo nalagu lahaa si dee areada loogu baneeyo loogu xaalfiyo looga mariyo dadka madow si dadka cadi ugu soo guuraan ay soo xusuusanaysaa maanta laakiin she can buy that house gurigaa way iibsan kartaa xaafadoo dhan bay iibsan kartaa hadday doonto hadday doonayso markaasay ilmadii iska yara masaxaysaayo koobkeedii shaaha soo qaadanaysaayo gudaha soo galaysaa ninkii David wuxuu sameynayaa wuxuu odhanayaa talow fariin ma u diraa gabadhan ma idhaahdaa do I know you miyaan ku aqaanaa websitekeedaad ugu diri kartaa ma garatay oo emailkeeda iyo wixii oo dhan ka heli kartaa oo dee laakiin fariintaasi dee qasamaha qofka inay gaadho dadku markay caan yihiin weliba dad ladana yihiin intaa fariimaa loo soo dirsadaa dad intaa wax ka doonaya dad xatay doonaan obsess ku ah oo jeclaaday dad maaragtay dee dana gaara kale oo badan baa intaa lasoo xidhiidhaya marka qof kasta uma jawaabi karaan fariimahaasina inta badan hadday doonaan maba gaadhaan waa dad baa iskrin garaynaya oo u shaqeeya iyaga eegaya oo qofkays yidhaahdaan dee waa qof caan oo maaragtay ama dee ay iyaguba dooni lahaayeen inay arkaan oo lagama maarmaana mooyaane dadka kale uma gudbiyaan qashinkay ku daraan waxa kaloo dhan delete bay markiiba taabtaan taraashkaa loo leexiyaa markaasuu odhanayaa I think I'm just gonna send her an email buu bilaabaya inuu type garayo waxaan ku rajaweynahay fariintani in ay nabadgelyo kugu soo gaadho ma hubo inaad fariintan toos u heli doontid oo fariimahaaga adigu sheegaraysid waxaan socodsanayaa haddii fariintan cid kale assistantkaaga iyo cid kale furto qof kastoo furow inaanad fariintan tuurin inta aanad qashinka u leexin magacayga hebel hebel baa la yidhaahdaa waxaan doonayaa inaan su-aal aada iyo aada muhiim u ah weydiiyo su-aashaan ku weydiinayaan waxay tahay miyaad ku kortay areada magacaas leh lake house reerkiinu ma lahaa reerkiinu ilmaha keliya ay haysteen adiga ma aha wiil yaroo aada daristihiinna ma wada ciyaari jirteen intaa iga soo jawaab fadlan ma aha qof wax ka doonaya intaasuunbaa doonaya Margaret inaan weydiiyo fariintani waa fariin aada iyo aada muhiim u ah ee soo weydiiyo Share, comment, like, follow, and subscribe.